halkan ayaa ah goobta qarax uu ka dhacay ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad dhowr iyo 10 ruux ay ku geeriyoodeen halkan dadka geeriyooday waxaa u badan dad rayida oo ku sugnaa goobtan burburtay oo ahayd goob maqaaxi ah isla markaana dadku xilliga qarax u dhacayay ay markaasi ka cunteynayeen dad lahaa xarumahan ganacsi ee halkan ku teedsan ayaa sidoo kale geeriyooday khasaaraha ilaa hadda cid si rasmi ah u cadeysay ma jirto balse dad goob joogayaal oo halkan joogay waxay noo sheegeen in khasaaruhu ay suuragal tahay inuu intan ka badan karo horey waxaa loo qaaday dad kale oo aad u fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ahaanba intaba loo qaaday gaadiid fara badan oo halkan ku baakinaa dadkii lahaana goobo ganacsi iyo howlo kale halkan ay u joogeen ayaa sidoo kale burburay muxuu ahay tole gaarigaana aniga leeyahay laakiin gaarigan meesha baarkin ahaan aan isaga dhigan jirnay annaga dad maaragtay oo shaqaalaha ayaan xafiis meeshaas noogu yaalla ayaan aadnay marka xafiiska markaan aadnana markaan soo aadaynay qaraxaasaa ka dhacay gaari kale oo halkan soo galay waa la yaldhahay oo albaabka laga furay wallaahi aniga ma sheegi karo sababtoo ah waxa waaye dad oo meesha qarax hadda u dhaco waa la kala cararaa soo anagana markii dambe oo gaariyaasha yaala la dhahayaan ku imid marka gaarigaygana alxamdulillah anagana maaragta kuma jirin baarkinkaanu iska yila alxamdulillah waan fiicanahay alxamdulillah wax khasaara oo ogta ilaa hadda ma wax khasaara dadka ina meelahan dhagaxyada ku jiraan I don't know laakiin wixii markii aad joogin waxba kama sheegi karto Soomaaliya alxamdulillah sidaad arkaysaan waxaa dad meeyda laga soo hoos qaadaya dhismaha halkan oo ah bar Italia oo ah maqaaxi goob dad badan ay isugu imaan jireen waxaa aad u adag xilligan in dadka halkan ku jira la soo badbaadiyo inta nool marka la eego sida hawsha ay u socoto